Ku soo dhawaada barnaamijkeena Khabaaraadka Bollywood anagoo ku soo qaadan doona qodobo aad u xasaasisan. Fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato janaalkeena, fadlan subscribe noo saar, like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan. Aragtidaadana comment noogu reeb. War cusub Pooja Hegde iyo Jacqueline Fernandez oo Ranveer Singh kala soo muuqan doona filimkiisa xiga. Waxaan idinla wadaagnay maalmo ka hor in director Rohit Shetty uu dib u samayn doono filimka shactarada ee Angori kaasoo 80-maadkii soo baxay. Filimkan ayaana waxaa hogaamin loogu dhigay Ranveer Singh isagoona ku matali doona double role ama laba weji. Haatan waxaa lagu soo warramay in filimkan ay attriisho ka noqon doonaan Pooja Hegde iyo Jacqueline Fernandez ayadoona mid walba ay attriishooyinkan ka mid ah Ranveer Singh jecel shaashada kula wadaagi doonaan. Rohit Shetty oo loogu haray samaynta filimada actionka ayaa dib ugu laaban doona samaynta filimada shactirada badan waxaana xusid mudan in filimkan weli magacaan loo bixinin. Uur ha ahaado, corona ha ahaado ama karantiil midkood igama hor istaagi doona inaan dhammaystiro duubista filimka Laal Singh Jala. Sidaa waxaa tiri Kareena Kapoor Khan, attriishada superstarada sidoo kalena ah attriishada ugu guulaha badneed 20 sano ugu dambeeyay Bollywoodka ayaa maanta ka farxalatay duubista filimka sida weyn loo wada sugayo ee Laal Singh Jala. Laal Singh waxaa hogaamiye ka ah superstar Aamir Khan waxaana lagu waday in la daawado la saaro Christmaska 2020 balse COVID-19 ayaa sababay in dib loo dhigay filimkan. Kareena oo filimkan attriisho koowaad ka ayaa muddadii ay duubista filimkan waday waxaa isugu darsameen arrimo fara badan haba ugu horay uurka ay leedahay. Sidoo kale waxaa meesha laga saari karin xaaladda dhibaato ee uu abuuray cudurka safmarka ee COVID-19. Haddaba ayadoo sidaas ay tahay, Kareena waxay maanta ku guuleysatay in ay dhammaystirto jadwalkeeda duubista ee filimka ku lahayd. Kareena ayaa barteeda Instagram-ka soo dhigtay sawir ayada iyo Aamir Khan xilli ay qurxaysanayeen waxayna ku soo dul qortay sida tan: safar kasta mar buu dhammaadaa, maanta waxaan soo dhammaystiray duubista filimka Laal Singh. Waxaana soo martay waqti adag, cudur safmar ah, uurka aan lahaa iyo rafaad badan si aan u dhammaystiro duubista filimkan balse midkoodba igama hor istaagin inaan qaab caafimaad leh filimkan u duubo anigoona ugu dambeyn si nabadgelyo ah kusoo dhameeyay. Waxaa xusid mudan in filimkan Laal Singh laga soo min guuriyay filimkii Hollywoodka ee Forrest Gump kaasoo uu hogaamiye ka ahaa jalaaga Hollywoodka ee Tom Hanks isagoo abaalmarino badan ku guuleystay. Filimkan oo hogaamiye ka yahay Aamir Khan ayaa waxaa director ka ah Advait waxaana lagu wadaa haatan in tiyaatarada India la saaro Christmaska 2021. Waan iska dhex arkay Tiger Shariif Sharaada oo afka furutay jacaylka Tiger u qabtay shaacisay. Sharaada Kapoor ayaa ku dhex jirta xilligeedii ugu wacnaa shirkadda Bollywoodka iyo shaqadeedaba maadaama aflaantii u dambeeyay guulo wacan u gaareen kuwaasoo kala ah Saaho iyo Chichori. Waxay kaloo la timid Baagi 3 kaasoo guul wacan u gaaray waxaana lagu ammaanay isku soo dhawaanshaha Tiger iyo Sharaada markay shaashada ka soo muuqanayaan. Ileen Baagi ayaa hore loogu helay siday u jileen. Haddaba Sharaada oo wax laga weydiiyay la shaqaynta Tiger iyadoo meel xalfad ah joogto waxay ku jawaabtay Tiger waa qaaligeyga, waa saaxiibkay qaali aadna aan u jeclahay, dabeecad wanaagiisa iyo shaqadiisa hufan. Mar ayaaba jirtay oo aan iska dhex arkay kadib way qososhay markay saas dhahday. Almuhiim waan ku faraxsanahay inaan mar kale la shaqeeyo qof igu qaali ah Tiger Shariif. Waxay kaloo xidigtan goobta ka sheegtay siday carruur u noqotay markay Big Amitabh Bachchan film la sameysay. Markaad legend shaashada kala soo muuqato adigoo dhan carruur ayaad noqonaysaa, waana mid ugu dhacday aniga markaan mudane Amitabh Bachchan shaashada kala soo muuqanayay, laakiin wax badan oo khibrad ayaan ka faa'iidaystay la shaqayntiisa. Manushi boqorada quruxda dunida ee 2017 oo ammaan kala dul dhacday Akshay Kumar. Manushi waa attriisho Hindi ah taasoo sanadkii 2017 ku guuleysatay gabadha ugu quruxda badan dunida. Manushi waa weli kama aysan soo muuqan aflaamta. Filimkeeda ugu horeeyay wuxuu ahaa filimkii Prithviraj ee shirkadda Yash Raj iska leedahay kaasoo uu hogaamiye ka yahay superstar Akshay Kumar. Filimkan oo duubis ku socota ayaa waxaa dilaacay fayraskii safmarka ah ee COVID-19 taasoo keentay in dib loo dhigo duubistiisa. Haatan ayaana lagu wadaa hawsha duubista in dib loo ambaqaadi doono. Attriishada Manushi oo saxaafadda la kulantay ayaana su'aal la weydiiyay waxaana ka mid ahaa sida ay u aragto in dib loo bilaabo duubista filimkan. Manushi ayaa ku jawaabtay in arrintaasi aad ugu faraxsan tahay. Waxay kaloo sheegtay in ay sugi la'dahay Akshay Kumar mar kale inay shaashada la wadaagto. Ayadoo superstarkan Akshay Kumar ka hadlaysa ayay tiri
mudan Akshay waa dhiirigeliyey waana qof aan wax badan ka bartay maalin walba. Munushi ayaa intaa raacis in wax weyn u tahay la shaqaynta Akshay Kumar. Filimka Prithviraj ayaana filim oo ay iska leedahay shirkadda Yashraj Films waxaana hogaamiye ka ah superstar Akshay Kumar. Qorshaha wuxuu ahaa marka hore in la daawado 2021 balse haatan 2021 ayuu dib ugu dhacay daawashadiisa.